Somaliland ayaa dhabarjab weyn ka soo gaaray dagaal galabta ka dhacay degmada Buucame ee gobolka Sool. Waxaa la sheegayaa in gudoomiye ka tirsan Somaliland halkaas lagu qabtay. Ciidamo ka tirsan Somaliland ayaa duurka galay iyadoo la sheegayo in maxaabiisna gacanta lagu dhigay. Awoodii ugu ballaarnayd ee ka tirsan ciidamada Puntland ayaa halkaasi gaaray galabta, waxayna u muuqataa in dagaalku sii ballaaran doono berito. Somaliland ayaa caadeysatay in ay ku soo xadgudubto dhulka Puntland iyo deegaanada gobolka Sool. Laakiin wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa galabta sheegay in taaka ka mid ah Puntland ay Somaliland qabsan doonaan, isla markaana ay Puntland xaqiijin doonto dhammaan deegaanadeeda inay tagi doonto. Waxay u muuqataa in dagaalkan yahay kii ugu dambeeyay ee Puntland iyo Somaliland ku kala bixi doonaan. Ciidamada Puntland oo aad u qalabaysan isla markaana wata hubka aad u waaweyn ayaa halkaasi gaaray, iyadoo la filayo in guutooyin gantaalo iyo dabaabado waaweyn wataana ay berito ka soo bixi doonaan xeebaha bari iyo deegaanada Garacad iyo gobolka Mudug. Laakiin Somaliland ayaa u muuqata in dagaalkaas ku jabi doonto. Dagaalkan ayaa u muuqda mid ay soo abaabushay Somaliland, laakiin Puntland ayaa sheegtay inay tahay inay isdifaaci doonto, isla markaana ayaan raalli ka ahayn dhiig Soomaaliyeed oo halkaas ku daata. Madaxweynaha Puntland ayaa awal hore u xaqiijiyay in Puntland ay deegaanadeeda tagi doonto, isla markaana degmo iyo tuulo kasta oo ka tirsan Puntland gacanta lagu dhigi doono. Shargareeya walaalayaal, waa aqalkii. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.